muddo dheer ayaan ururkan kusoo jiray. runtii aasaaskiisina anaa guddoomiye ah muddo 2 sano markuu urur ahaa. waxaa jiri jiray waxa la yidhaahdo hogaanka halganka, kaas anaa guddoomiye u ahaa. waqti ayada waan yaraa, waxaan soo arkay inaan khibrad fiican lahayn, marka ragigan waaweynaana si voluntary ugu wareejiyey. intii ka dambeysay kaalimo badan oo kasoo qaatay. marka doorashadan waxaan u arkaa inay fursad ii siinayso wixii aan aaminsanaa iyo saan u arkay in ummadan mustaqbalkeeda lagu dhisi lahaa inaan fursad u helo aan ka qayb qaato. waxaan dareensanahay hadda inaan soo gaaro xilli aan almost aan diyaarin lahaa jiilkii dambe aan ku wareejin lahaa halganka. marka last maaragtay inaan effortka inaan sameeyo inaan ummadan hadafkeeda inay gaadho ama dadkii gaarsiin lahaa aan ka tago. saasaan yaan rajeynaya fursadda inaan helo. waayo bal waxaad wax yar ka hadashaa guddoomiye xilkaaga horreeyey admiraal maxamed cumar cusmaan iyo axmed yaasiin oo kula tartamay, iyaguna see u arkeen doorashadaada? guddoomiyihii hore runtii waa nin haliyey weeye, waa nin aada u basil weeye. runtii annagoo idin wax badan baan ka muddadii uu nala joogay. wuxuu ahaa nin admiral ah oo khibrad badan u leh maaragtay maamul dad iyo ciidan. wuxuu kale u ahaa muddo badan buu xisbiga hantiwaa gacanka soomaaliya raggii kiciyey buu ahaa, dhisay. marka dowladda soomaaliya kaalin muhiim u ka lahaa. marka khibradiisu wax weyn bay kusoo kordhaysay halganka iyo muxuu ahaa iyo annaga waxnahayey. inka tegadiisuna caloolxumo badan bay nagu reebaysaa, laakiin si voluntary asagaa jeclaystay in maadaama uu hadda uu leeyahay ragga way sii wada karaan. marka runtii asagu shucuurtiisana aad bay u fiican tahay, uuna ku faraxsan yahay. waxaana dee gudoomiyahani ruuxii uu noqonaya halgankeena kama dhacbaxayo oo ilaa life buu u yahay gola dhexe. sharciga ururka waxaa wey qofka guddoomiye noqda iyo dadka asaasayaasha life bay u yihiin gola dhexe. marka nagama dhexbaxayo. kolley mechanism kale uu halganka ku taageero inta uu awoodi kale uu sameynaya. aad buuna ugu faraxsanaa. mudane axmed yaasiinna sidoo kale guud ahaan anagoo idilba waa urur anagoo aada dimuqraadi aan u nahay waan ogolnahay. runtii inuu istijaabina dhalinyaro weeye oo fiiriyo yani kaalinta kuga jira. runtiina waxaa muuqanaysa in kalsooni badan oo haystay. annaga waan ku faraxsanaa. markii hawshu dhamaatayna si faraxsan oo sharaf leh ayuu yani u consiid gareeyey. waana u cadeeyey in nolosha ururka meeshiisa xubinkiisa yahay. marka waa runtii ururkeena xubnihiisa aad bay u basal yihiin, waana very positive. inkastoo qofku marka wax uu raadinaya laga yaabo inuu markaa u waayo kolley qofku aada uma jeclaan, laakiin haddana waxa weyaan waxaan u halgamayna meel xoolo laga helaya maaha. marka anyone of us wada kan kale waa inuu garab istaaga, waa dhaqankeena wey. waayahay hadda shirweyne ayaa idinku soo xirmay magaalada Goday oo doorashadaadu ka soo baxday. weji cusub ayaa ONLF ay gashay. guddoomiye ahaan qorshahaagu muxuu yahay? qorshaha ururku muxuu yahay? qorshaha u horeeya horta waxaa weya inaan ururka midayno. mar walba doorasho la gelaya, mar walba waxaa abuurma tartan baa abuurma xubnaha ururka in la mideeyo. aaska laakiin ummadda soomaaliyeed ee dalkan degan geeska africa hardan culus baa ka socda. qowmiyada etoobiya ku wada jira, qolo walba danteeday u qaadatay, u qalab qaadatay. marka soomaaliduna anaga meesha salaanta ku hooseeya kaga jirnaa. marka in ummadan la mideeyo, hal hadaf qaran inay yeelato, xisbiyadeeda, maamul deegaanka, waxgaradkeeda, odayaasheeda, shacabka oo idil, ciidamadeeda amniga, in hadaf guuda ummadda qof walba la ogyahay warkaas aan laga leexanayn. wixii kala laisku khilaafayo oo noqdo waxyaabaha aragtida si loo fulin lahaa, laakiin national agenda inaan abuurno oo laisu yimaado waa midda koowaad wey. midda laaan inaan isu diyaarino doorashadan si dhaba aan u diyaarino waxay ay u baahan tahay. inaan dhaqaalo gudeed abuurno isku filnaado. islamarkaana waxa weye in xuquuqda nooga maqan xeerka federaal in ayadana maaragtay oo qaybihii ka dhinaa in la riixo. halkaasna ummadda soomaaliya waxa oga maqan meesha la raadiyo. islamarkaana la urur national maadaama aan isu diyaarinayno in taxaaluf aan isku mabda anaan isku ujeedanahay. taxaalufka la yidhaha federalismka ayaa ka tashiga inaan marka ururadii daraasa ku sameyno ciddaan taxaaluf lahayn mustaqbalka aan ayadana derisno. dowladda federaalka inaan calaaqaadkeena la fiicnaado. nabadda oo naga go-an inaan sii adkayno. amniga dalkaygana aan maaragtay aan xoojino. dowladda degaankana gacan ka siinayo ciidamada amniga. islamarkaana anaguna kaalinta ka qaadan karna ka qaadano. guud ahaana shacabkan oo dhib badan ku dhacay oo burbur iyo dagaal ku dhacay. ciidanka xoreynta oo aada u baaba'ay oo burbursan wixii ka nool. aqoontii aada u tiro badan. dadkii la waxyeeleeyey, gabdhihii la kufsaday. waxaasoo idil dadyogaasoo idil sidii loogu sameyn lahaa projects maaragtay rehabilitation iyo integration into mujtamaca inay noogu sameeyo nolosha dhiso mujtamacana ay ku noqdaan nolol loo abuuro. taasoo idil baana sugaysa in waxyaabihii hore u dhacay ummadda soomaaliya islaysa waa la isku daray nafta isu keentay in ayaga laftooda dadka sulux laga abuuro, walaaltimo laga abuuro. marka guud ahaan waa saasaan u aragnaa. waxaa hadda noor yaala u balaaran.
waaye shirweynuhu maxaa go-aanu ka qaatay arrinta ku saabsan heshiiskii aada la gasheen dowladda Ethiopia iyo nabadda gobolka? si buuxda u taageeray, wuxuuna nagu booriyey inaan nabaddaas si istiraatiiji aan u qaadano oo maaragtay xoogaas ku dayna carqaladeena maaragtay ismeel lagu soo wada marka waa nabadda waa la endorse-garay waana soo dhaweynaya. waaye hadalka ugu dambeeya waxaad iga warantaa doorashada sanadka soo socda iyo sida aada uga qayb galaysaan. annaga waxa weeyaan hadda xisbiga diiwaangelintiisa waa soo dhamaatay, last stageka ayuu maraya idaacadaha laga sii daynayo, marka warqada aan helno marka waxa weeyaan waa wixii ka dambeeya waxaan soo diyaariyay inaan abaabulno dhaqaalihii doorashada lagu raadin lahaa, inaan generate garayno barnaamijkii aan dadka usoo bandhigi lahayn kuwa tastamana xisbiyada kale ee dalka ka jira inaan diyaarino oo si aan u articulate muuqata shacabkeena ay fahmi karaan, in xisbiyada dalka ka jira aan wixii aan dialogue yeelan taxaduf lala noqon karo iyo wixii kaleeto, marka in haddaan abuuri karno joint front oo soomaalida ay ku wada jirto, iyo inaan maaragtay taageero caalami ah helno. dadyo badan iyo ururo badan baa diyaar waa inay transitionka from war to democracy inay maaragtay peace inay gacan ka geystaan, way noo diyaariyaan maaragtay yani farsamooyinkii loo baahnaa iyo tababaradii iyo waxaasi capacity building xubnahaygana inaan maaragtay aan u samayno. marka kulley laakiin waan rajeynayna inaan maaragtay waan aadan abaabulka iyo advocacyga ugu fiicnayn, marka waan rajeynayna inaan shacabkeena aan abaabuli karno, aan u diyaarin karno doorashadaas. aad baan rajo weyn ugu qabnaa inaan kaalin wax ka qaadano, ama inaan ku guuleysano xukunka xabsna, ama inaan qayb wax ka qaadano hataa hadii nala qaybsado, laakiin collusionno abuurno aan bedelno maaragtay historyga dalkan iyo taariikhda iyo ummadan inay maamulka sida wadaxsi doorashadana dimuqraadi u ahayd. waad arkaysan transparent cod qarsoodi aan la ridayay, marka in wadankana doorasho xol ay ka dhacdo dimuqraadi noqdo, dadkeena runtii la sameeyo warbaahin xora in loo sameeyo inay ogaadaan xuquuqda dastuurka Ethiopia ku jirta, yani xuquuqda aadanaha ay leeyihiin dadka, ama ha noqoto wacyigelin shacabka ama xubnaheena bislayntiisa.